ugu horeyn in wasaaradda isgaarsiinta Somaliland ay shacabka ka sugayeen arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda xilsaarantiin waxaa jirta in muddo dheer xukuumadda Somaliland kala dambeeyay ay soo hadalhayeen in la isku furo adeega telefoonada moobilada runtii arrintaas ugu horeyn maxaa hortaagan aad baad mahadsantahay soo dhawaad Luqmaan waxa su'aasha la xiriirta arrinka la yiraahdo interconnectionka ama in telefoonada wada hadli karaan qofka sita sim cardka shirkadda uu la hadli karo qofka sita sim card shirkad kale waxaana ka mid tahay qodobada xeerka isgaarsiintu waajibinayo ku waajiba in ay shirkadaha bixiya adeeg isgaarsiinta iyo wasaaraddu ay hirgeliyaan muddadii joogno 3 sano iyo dheeraad imika aan ka shaqeynay xagga wasaaradda ahaan wixii looga baahnaa dhamaystirnay waxa ugu horreeyay wax la yiraahdo nidaamyada regulation oo sheegay waajibaadka iyo shuruudaha iyo cid waliba waxa looga baahan yahay waxa jirtay mar hore inta isku xidhmeen shirkaduhu ay hawshaas istaagtay cilado xagga maamulka iyo maaliyadda intaba la socda si taa looga fogaado waxaan u sameynay xeer nidaamyaha waxa kale oo diyaarinay heshiis ma agreement ay maaragtay shirkaduhu galayaan oo un ayrs ku furo maaha laakiin heshiis yimaado heshiiska waxa kamid ah lacagaha loo kala qaadanayo waxa kamid ah tayada adeega oo lama rabo qofkii interconnection sameeyay adeegiisu uu noqdo mid maaragtay aan fiicnayn oo inuu kala noqdo waxa kale oo lamid ah hadii yimaado muran marka qaarkood muran baa iman kara qaabka loo kala saaray heshiiskan diyaarinay halka wax ka dhaqaaqi laayihiin waxa weeye dhinaca shirkadaha weey wasaaradda aan diyaarinay xagga shirkadahan weli dhamaystirmin inkastoo shirar badan yeelanay tiraba 3 goor horena aan ku dhawaaqnay in interconnectionku uu hirgeliyo haddana xagga shirkadahan weli ka soo dhamaystirmin aan filaynaa inay muddo dhow ku dhamaystirmi doonaan hay'adii dawladda u xilsaarneyd shaqadaas aad tihiin awood dawladeed baad leedihiin maxaad u bareysaan cid gaar ah wax dadka dan u ah oo bulshada dan u ah mid awood dawladeed ku socodsiisaan lama oran karo barid iyo in la isbariyo laakiin waxa in la diyaariyo oo shirkadu ma hortaagna adu waxa weeye hortaagitaan ma laftigooda waxa weeye waxyaabo ku hirgelayay in shuruudii ka horreeyay la dhamaystirnaano ka shaqeynay shirkadu waaweyn ogna wax laga rabo marka muddaan siinay aan isku ognahay in ku soo dhamaystiraan muddadaas hadii ay dhamaystirin weydun baa wixii talaabo ku xigay la qaadi doon laakiin ma rabno inaan ka hor dhacno inta ay socdaan shuruudihii interconnection ku hirgeli lahaa laakiin waxa ku sheegay waxa weeye inay naga go'an tahay interconnection uu hirgalo intaanaan ka tagin xilka taas shirkaduhu dhaqaale aad u badan ayay telefoonada internet ka qaadaan xagga dambe waraysigeena ugu iman wasiir wasaaradda isgaarsiinta Dr. Cabdulla joogto adiga wasiiradii ka horeeyayba arrimaha isku furka telefoonada marka ay galaan pressure badan baa xagga ama madaxtooyada ama shirkaduhu dawladda saaraan caqabad noocaas oo kala miyaa lagu saaray oo ay hirgeli laadahay mar hadda 3 jeer horena aad sheegtay in arrintaas ay hirgeli laadahay maayori wada shaqeyn fiican naga dhaxaysta iyaga laftigoodu waxa isleeyahay markii koowaad si dhaba looga wada hadlay oo waliba qaab farsamo la socoto aad looga hadlay oo waafaqsan shuruucda si koowaad aan kuugu sheegay markaan sameeynay xeerarka regulationka waxaan ka soo qaadanay ilaa 4 waddan Afrika Kenya kamida Rwanda kamida Ghana kamida waxa kamida Nigeria iyo South Africa shanta waddan qaabka u sameeyay interconnectionka ka soo dheeganay waliba inaga qaabka inoogu dhow ee noqon kara waddanka la yiraahdo Rwanda kale aan ku soo qaaday hadday noqoto qiimaha iyo hadday noqoto farsamo ahaan iyo hadday noqoto wixii kale la xiriira farsamo ma doonay marka dadka inaan ku mashquuliyo waxyaabo aad si details laakiin wada shaqeyn fiican baan ilaa imka naga dhaxeeya gaab soo jira oo xiliyada aan doonay inuu hirgalo wali hadda mu dhamaystirmin laakiin waxa weeye anaga iyo shirkadaha war fiican oo aan kala qaadanay jira wasaaradda madaxtooyada wasku siyaasad ana waxaan filnaa siyaasadda madaxweynaha taas aanu ka shaqeynaa in la hirgeliyo kana go'aan in dhammaan waxa xeerka isgaarsiintu oo wasaaraddu ku samaysan tahay ugu waajibayo in aan maaragtay fulino marka ilaa inta ku sheegi karaa wada shaqeyn fiican naga dhaxay macali wasiir waxa jirta in dad badan oo reer Soomaaliland ay qabaan hooyooyinka suuqa fadhiya cashuurtu aanay ku baaqan ama tamaandhada iibinaya ama cid fadhiya balse shirkadaha waaweyn heer u dhiganta cashuurta ay ku shaqeeyaan ama adeeg ay bixiyaan ama dakhliga soo gala aan laga qaadin arrinta maxad ka ornay arrinka waxba ka jira
oo hadii la yidhaa heerka mariidka laga qaado dadka danyarta cashuurta iyo inta laga qaado shirkadaha weyn way kala duwan hadii la yidhaa waa dhab weyn taanaga markaa ka duulayna intii aan joognay waxaan isleeyahay ilaa 2-3 jeer baan dakhliga ka soo galay laamaha dawladda xagga isgaarsiinta kor u qaadnay shirkadu waxay ku jiraan maalgashi fara badan waxay ku jiraan shaqaaleysiin fara badan bay sameeyeen marka maalin iyo laba kaliya lama gaarsiin karayo heerka la doonayo intaan joognay marka waxaan leeyahay laba goor la 3 goor kor waan u qaadnay noocyo cusubna wali waan ku darnay oo kuwii hore ku jirin sida dakhliga frequency-ga aad u yaraa kan u dambeeyay iminka aan sanadkan 2021 aanu ka dhaqaaqinaa waxa weeye mid aan ku fariisinay dakhliga laga qaado tusaalahan frequency-yada wadanka Rwanda kale oo wadan ka soo kabtay dagaal sokeeye sideenoo kale inkastoo inaga dhaqaale badan yihiin laakiin haddana markaad eegtid xagga isgaarsiinta aad bal isku dhow marka kor baan u soo qaadnay waan wadaynaa ilaa gaarsiinay heerka shirkadda inta laga qaaday qofka danyarta inta laga qaaday ilaa intay soo gaaraya marka waan haynaa weegeedii waan socotaa waana halka noo ayoolkii hadafkeena aan gaarno wasiir goorma ayaad isleedahay su'aal xagga hore haddaan dib ugu noqdo goorma aad isleedahay isgaarsiinta waa la soo furaya oo dadku iyagoo shirkadaha kala duwan sitay wada hadlayaan doorta waa waajib saaran maalin kasta dib u dhacdaa waa inaan xeerkii filin baa socota waxaana naga go'an imikadan laftigeeda maalin wada hadal baa noo socday labada shirkadood oo noo yeernay si taamsi faahfaahay waxaan sameynay gudi 3 dhinac oo maaragtay waliba labada shirkadood waaweyn iyo wasaaradda waxa way gudi 7 laba xubnood oo mid waliba ay ka mid labada shirkadood iyo 3 xubnood oo wasaaradda oo waliba dad muddo dheer khibrad ku ah oo ay ku jiraan khubaro ka soo shaqeeyay isgaarsiinta wadanka iyo maaragtay dibaddeedaba oo ilaa muddo 30 sano ku soo jiray ayaan u diyaarinay marka gudida farsamo gacanta ku haysa waxa isleeyahay waliba boqolkiiba 80 qodobadii ahayd in interconnection ku hirgalo waa la dhameystiray boqolkiiba 20 baa hadhay in yaroo farsamayntaan waxa isleeyahay wada dejin karaysa qiimaha isgaarsiinta telefoonada iyo qiimaha internetku wuxuu aad uga qaalisan yahay ka dalalka jaarkana tusaalahan Soomaaliya shirkadaha Hormuud iyo Gulis way ka qaalisan yihiin kuwa Soomaaliland jooga ka hawlgala qiimaha adeegyada internetka iyo ku bixiyaan ku hadalka arinta maxaa la xoga qamo weydeen maxaad kala socotaan arka qiimuhu meelaha qaarna wadamada qaarkood in ka jabanahay meelaha qaarna way ka qaalisanahay saad la socotaan inaga waxaan ku shaqeynaa waa suuqa xorta laakiin xadidaan maxay diidaya haday suuqa xortuna waxa weeye as regulatory body waxa la yiraahdaa ma hay'adii nidaaminaysa waxay eegaysaa mar walba dakhliga iyo dadkiisa guud marka waxaan diyaarinay xeer nidaamyo ka hadlaya hawsha laftigeeda waa xeer nidaamyaha qiimaha adeega iyo qiimo dejinta waa regulation of tariffs and pricing marka waan la wadaagnay kulli maalin soo bixi doona waana hawlaha inta badan gacanta ku hayno marka taan ku sheekay waxa weeye in ka wasaaradahan qiimaha lagu bixin waliba waxa ugu muhiimsan qiimaha xagga daatada iyo internetka ka ugu muhiimsan marka saad la socotana kulli labadii sano u dambeeyay wax badan ba iska bedelo waxyaabaha inkastoo qaybna tartankii ka yahay laakiin haddana mar walba in qiimaha internetku hoos ugu dhaco aad baan uga shaqeynaa waanaan kula jirnaa shirkadahana waan kala hadal ka howl gacanta ku hayno iga laftigoodana aan wax ka qabanay waana la dareemayaa in labadii sano u dambeeyay qiimuhu wax iska bedelaan hoos ugu dhacay adeega telefoonada kale qiimuhu aad buu qaali yahay mudawasiir oo shirkadahana kharash badan kaga baxo dalka gudihiisa ateenooyinka iyo inta free to air ka ah ay isticmaalaan maxaa soo kartaa qaaliyeentooda way sababtay ka wasaarad ahaanna maxaad ka qabateen muddada aad xafiiskan aad joogtay hadii aad eegtid wadamada Afrika oo kale qiimaha xagga voice-ka ama ku hadalka waxaan ku jirnaa kuwa ugu hooseeya waliba imika waxa ka dhigeen bundle bay ka dhigeen oo tusaalahaan kuwa qofku bishinta markuu ka hadlay intaasa ha bixiyun baa jirta marka waxaan soo karaa wadamada ugu hooseeya ku jirnaa 10 wadan ee ugu hooseeya ku jirnaa Afrika marka halka waxaan malayn inaanay qaali badan aan ahayn marka xagga dhigtid
haddaad ka hadlayso localka laftigiisu kolley imika waxaa jira dee qaabo kale oo waxa kamid ah waxyaaban OTT-ga la yidhaah applicationadan lagu hadlee WhatsApp ugu horeeya inta kale la socotay lamidiba meesha soo gashay marka iyada laftigeedu meesha ku jirtaa waan dhiirigelina tartanka tusaalahaan qolo waliba qiimo u samaysay bishii intaa dad ku shubatay intaa hel maalintii intaa hel marka mar walba adeegu hoos u jabayo waa qayb ka mid ah siyaasadda lagu dhiirigelinayo tartanka marka waan kala shaqeynay imika laftigeedu kolley wax laga yaabay inay soo bandhigaan adeegyo cusub oo kuwa ka jaban marka doorkaygu marna waa la socosho marna waa dhiirigelin in qiimuhu aada hoos ugu dhaco dadka helaan adeeg markaa furan marka kolley iyadana waan kala shaqeynay goorma silada xeer nidaamyaha soo hirgelaya aada ugu talagashay si guud wasaaraddu waxay soo saartay ilaa 7 xeer nidaamiyey 3 way hirgaleen 4 inkay diyaar yihiin marka waxaan ugu talagalnay in marba mid aan soo saarno kaan dhaqan gelino marka midkii taawaradu ha midna waxa in la diiwaan geliyo simkaariyada midna waxa kii liisamada oo laftigooda waxaan ka bedelnay liisamada ay shirkaduhu ku shaqeeyaan bariga hore waxa qaadi jireen shatiga kaliya laakiin imka waxa la socdaa agreement iyo heshiis ay la galayaan wasaaradda oo heshiiska haddii wax ka jiriyaan liisanka uu burayo heshiiskiisa marka saddexdaa hore iyagu horey u socdeen afarta kalena waxaan ugu talagalnay markii kuwaas yahay marka tusaale ahaan kan nidaamyaha diiwaangelinta simkaariyada kale wax naga soo hagaagay diiwaangelintii doorashada deedna si aan u dhicin maaragtay isu ekaansho oo dadku ay labadii isu aanay isaga khaldamin ayaan dib ugu dhignay diiwaangelintiina doorashada ku xigto adiga ogaay ololiya waxba meesha dhex socday imkaan markaa isagana hirgelinaa marka ka tusaale ahaan regulationka taariifiska iyo pricing waa noo diyaar saxiixun baa hadhay anun baa yaala wax kaloo isna yaala xidhnaamyo kaloo isna ka hadlaya numberinka tusaale ahaan numberada ay shirkadu kala adeegsanayaan oo kale isaga laftigiisuna waa waxyaabaha lagu hagaajinayo wax kaloo isna noo diyaar oo aanan weli hadda aanan saxiixin waliba aanu gaar ahaan aanan saxiixin meesha la xabeeyay xidhnaamyaha ka hadlaya xiriirka qofka macmiilka iyo shirkadda adeegga bixinaysa waxa jira adeegyo badan bixiyaan dadka qaar way caawdaan lacag laga goostaa qaarkood ma garan karaan xilligii uu maaragtay qofka macmiilkii uu lacagtiisii uu adeeg ku iibsaday ka dhamaanaysa kale marka xeer nidaamyahan isagana u diyaarinay marka kuwaas oo dhan imka kulli arrimii doorashadii waxba berigi dhawaansnidi waa kuwii dadkii macmiishii dhammaan lagu wada jeeday laakiin mar haddii hawshan naga soo dhamaatay kulli afartaasba waa noo diyaarin halkaan dul istaaga wasiir xeer nidaamyaha aad sheegtay macmiilka iyo shirkadda arrin khusaysan wax ka weydiinaya waxaa jirta dad badan oo reer Somaliland waxay cabasho ka qabaan shirkadaha telefoonadu iyagoon ogolaansho ka haysan inay message fara badan oo xayisiisa iyo fariimo kala duwan oo la soo dhex marsaday ay iskaga ka soo diraan mobilkaaga dad badan arrinta way la dhibayeen maxaad wax uga qaban weyday ku jirta waa kamid ah waxa adeeg kasto isgaarsiineed qofku waa inuu isdiiwaan geliyaa ama uu sameeyo waxa la yiraahdo subscription marka message-kan dalban u dhici maayo hadda maadaanu dalban qofka waxa weeye waa adeeg aan u baahnayn in maaha lagu shaqeeyo marka waxa ku jirta nidaamyaha aad u nasanta wasiir frequency isticmaalaan shirkadaha isgaarsiintu dadka isgaarsiintan khibradda u leh khibradda ama aqoonta la tacalluqda waxay sheegaan in qiimo u dhigma kii cashuurtooda aan laga qaadin maxaa sababa horta ama frequency badan iska isticmaalaan oo awoodba haddaad tiraa frequency-ga ama spectrumka ama si kale haddaan u dhigno signalkan isku xidhaya qofku madaxan mobilka sita iyo towerka anteenada saaran waa hanti qaran weey waana meelaha ugu badan ee lacag ka soo baxda waana tan aan markaa hadlaya dakhligii saxda ah ee ku waajibay wali hadda kama saxana shirkada laakiin intaan joognay horta isaga laftigiisa waxaan u sameynay xeer nidaamyo u dhaqan galay kaasi tali markii hore waxay sameyn jireen shirkadu iyaga intay meel bannaan raadsadaan bay geli jireen oo ay adeegsan jireen imika laakiin waxa la yidhaha spectrum allocation ay wasaaraddu maaragtay samaysay waxa ka mid ahaa gaarigan soo iibinay isaga laftigiisa lagu qiyaasay signalka noocaasa
qof markaa spectrum frequency aan lahayn inaanu geli karin dakhliga markay noqoto waxaan ka soo bilownay meel tusaale ahaan meelaha qaarkood horta wax kala duwan wadamadu siday u maamulaan qaarkood waxay ku bixiyaan auction wax la yidhaha ama xaraashid loo bandhigo muddo 10 sano la odhanaya waa la auction gareeyay deedna intaas la qaarna ka duwan yihiin waxay sameeyaan ama beer channel oo waxa weeye channel u leeyahay lagu kareeyo ay ku kareeyaan qaar kalena waxay sameeyaan noocay iyo saaranood marka anagu marka nimid xeerku ma jiray xeer nidaamka dhan wuxuu fasiray inta badan xeerka marka xeer nidaamka leeyahay xeer nidaamka ma xeer cusub waa qodob kamid ah qodobada uu xeerka guud sheegaya soo qabanaysa deedna si faahfaahsan loo hirgelinaysa sitaa marka aan u kor ugu qaadno dakhliga waxaan sameynay in qaab macquul oo waliba aan ka qaadanay Rwanda wadanka la yiraahdo iyo South Africa labada wadan baa inta badan adeegsada ayaanu uga kareynay shirkadaha dakhliga kor baan qaadnay kulli hadaad eegto booga xeer nidaamka xagga dambe ku yaala markii hore waxa ahayd meelaha qaarkood beer channel wax lagu kirin jiray $50 kaliya marka $3,000 buu ka dhigay marka dadka inta aan kor u qaadnay waan wadaynaa ilaa aan gaarsiino heerka aynu gaarayso marka gacantan ku haynaa waa run waa dhab mid gaarin heerka laakiin qaab maaragtay talaabo yaan ugu talagalay in kor ugu qaadno sanad walbana marka tanaan 2019 dakhli ka soo baxay maaragtay frequency lama mid hakii 20ka 20kana kor buu ka sii kacay waxa jirta ateenooyinka marka laga hadlayo macaali wasiir arinta ateenooyinka dad badan oo reer Soomaaliland ka cawda idinkuna waxaad sheegtaan in khatar badan aanay aad markaad eegteen aanay jirin dadkuna waxay sheegayeen in haweenka ilmihi ka soo dhicinayo xanuun ku dhacayaan kansar ka qaadayaan dhakhaatiirtu sida uu sheegtay way cabanayaan hadii habeen way hadlayaan maxay wax iska khilaafsan marka la doonayo in qaab cilmi loo daano imika waxa saa dhacay waa cadeeyay waa profit dadka doodaya intaasoo goor intaasoo awlood intaas saxaf barnaamijyo ka qayb galay cidii haysa cilmi baaris sugaysta cudurka iyo xanuunka oo jira ay sugtay cadaysaa keento meel cad waliba ma aha xafiiskayga proof cad soo keento madda soo hordhigto inta nooga aqoonayna imika aan baarnay muddo 2 sano baarinay waxa jirta hay'adda adduunka ugu caafimaadka ugu qaabilsan ee ugu cilmi rooni waa yuriya dadku weydiiyay adiga wasiir anu su'aalo xagee ka imanayaan adiguna jawaabaha xagaa WHO cid ka taqaan caafimaadka ama resource kala geliyay iyo waqtiga la geliyay iyo aqoonta la geliyay cid la mid ma jirto WHO wax soo saartay intaasoo baybar oo ka hadlaya arrimaha teenooyinka dadkana hore ugu sheegay in ciladu birta ma ciladu waa anteenada weey halkan xafiiskayga mid baa saaran inka markaad baxdo waad sawir karaysa waxa jirtaa waxa weeye in yar kooban bay jirtaa xafiiskayga waxaan taa ugu tusayaa tusaalahaan waxa weeye haddii dadku ay hadlayaan oo aan qaab aqoon aan u hadlay waliba qaar media ka hadlay marko waxaan jirin sheegay case India ka dhacon si fiican xataa aanu baadhin meel sheegay qof markaad sheegayso inaad keento paper ama research la qoray oo sax cilmi baaris waa qoon keeno oo proof de waliba ay cilmi baaris marka la leeyahay waa kuwa ay journalada marka la cilmi baaris waxay leeyihiin journalo la yaqaan oo adduunka lagu ogyahay oo ay hubiyaan dad aqoon yahay marka ay jirta cid noocaas oo ay hubisay ha keento anagu taani waxa weeye ilaa imka cilmi baaris si cad u tiri waxa su keenay haba yaraatin jirto meelaha qaarkood laga yaabaa in la yiraahdo hadii ay gaadho signalka nooca haduu noqdo waxa laga yaabaa inuu waxyee ama uu dareenka qofku saamdo taana waa tan aan ugu talagalnay inaan powerka ateenada ka soo baxaya lagu qiyaasayo ka wata hawada telefishinada ama television cableska ma la oran karaa telefishinada hadda jira ayaa arintaas kooto ugu xiran tahay oo cid kale hal abuurka lama iman karto waxa jirtay wareegtaan soo saaray
sanadka hore akhrigiisii oo ahaa in TV kasto nooca cable-ka la yidhaah oo aan noocan adeegsanaya frequency-ga aan ahayn satellite-ka inay 6 channel wax ka badan aanay adeegsan karin markaad eegtid inta noo bannaan waliba waa caasimadda Hargeysa oo keliya gobolladu kuma jiraan iyagu waxa jiray markaa in aan ku soo rognay 6 channel wax ka badan inaanu adeegsan karin qalab technology cusubna ay u adeegsadaan marka mar haddaan saa sameynay dee koota ma noqon karayso taas laakiin hirarka waad buuxiseen iyagoo keliya kuwa cusub hirar ma la siin karaa waa tan imika wadno reformka guud ee shirkadaha isgaarsiinta horta qaatay frequency-da faraha badan leh oo halkan ay TV-yadu ka raadinayaan shirkadaha isgaarsiinta frequency-ga u bahnaayeen iyo qaar aan u bahnaynba hore u qaatay marka iyadu laftigeeda inta sanad ka hadhay shirkadaha isgaarsiintu inay ka baxaan ma rabnaa wax qaybaha aanay lahayn ay u daayaan TV-da marka wixii soo banaanaado la siin doonaa daawadayaal weli waxaad nagala socotaan MMTV waraysi uu la yeelanayo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Dr. Cabdulle Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil macallin wasiir waraysigan hore ugu soo socono waxa jirtay fure aad Soomaaliland u doonteen serial number oo wadan Afrikaan u doonteen oo SL aad Soomaaliland iskaga mid ahaayeen xagga ku dambeeyay u socdaa heshiis kale meel kale ka baxay xogtaasi u socotaa waxyaabaha dib noo dhiga kamid ah COVID-19 goor ma soo dhamaaday waxa safaradii xilli baxay oo dhan baa wada istaagay ka kuleymka kama hadli kara hawsha laakiin hawlan gacanta ku hay waxa kaloo jirtay fure dad soo ah oo internetka Soomaa xagga ku dambeeyay taa muqdisho qaatay way sidoo qaatay bal kale horta muddo horey ayay ka hawlgaleen marka way nagu horeysay ka wala wareegtay muqdisho la wareegay marka idinka maxay xal sameeysan waa taan ka xidhnay wixii dhotsooy inay wadanka soo galaan waxaan leenahay ma waa hawl qoladaas ay leeyihiin Soomaaliland furo gaarmiyad doonta waa taan aan raadinayna ka hawsha saasha hore weydiisay qayb kamid ah si aan taa xalkeedu gaaray macallin wasiir aad iyo aad bad mahadsantahay waraysiga wasaaradda aad ku saabsan shaqadeeda aan kula yeelanay ugu dambeyn adeegga boosaha xaggu ku dambeeyay adeegga boosaha laba dhinac baan ka shaqeynay mid local iyo mid international marka COVID-19 kalaftigiisu meeluhu naga waxa dib dhigay adoo heshiiska hore Djibouti la galnay kulay ku yimaadaan waraaqay iyo alaab wax fara badan ma soo mara dhowr meelood kale oo marnayna waxa dib nooga dhigay COVID-19 laakiin waxa ujeedadu inaan hirgelino adeeg boosaad oo dibadda ka yimaada ka gudu waxa weeye laamaha dawladda wadagtiino wixii waraaqana oo kala qaadna imkana waxa socda wax la yiraahdo postal address ama zip code qorinku yaqaanaa oo in si waliba caasimadda qof kasto ama guri kasta ama meel kasta oo kamid ah magaalada caasimadda Hargeysa yeelato postal number sanahan imka wasaaradda kale inay yeelato sanahan wadadan hore kale magac yeelato guriga wasaaradda yeelato number taanu kale xafladda furinteedu way dhawdahay aan dhawaan shaqayn doona marka waxa kale oo aan diyaarinay bioboxeed wax la yiraahdo oo in qofku yeesho box darseed xogaa dhismaheeda noo hirgelin laakiin imka waad sii mari kartaa tiraan diyaarinay imka wasaaradda xiyaar iyaduna marka gacantan ku haynaa xeedhada kalena noo socdaano inta waan wadna inta waxaan ku saafbeernaa waraysigii ku saabsanaa shaqada wasaaradda waxaan jecelahay mid iyo laba su'aalo kale oo siyaasadda la xiriira maadaama boos siyaasi ah wasiir fadhido aan kugu daro waxaa jirta doorashadii ugu dambeysay Soomaaliland ka dhacday xisbiga kulmiye oo aad ka tirsan tahay gobolka Muruujeex si weyn baa loogu challenge gareeyay ama si weyn baa tartan ula galeen xisaabta mucaaradku waxay kaga guuleysteen maayarkii magaalada sidoo kale maayarka Gabiley ayaa isaguna mar dambe waa la doortay laakiin haddana isna wuxuu kala kulmay tartan mucaaradka si guud xildhibaanada baarlamaanka iyo xildhibaanadii muxaafid iyo xildhibaanada golaha deegaanka waliba majority-ga ay yeeshay dhaliisha ma yeelanayaan siyaasiyiintiina gobolka ka soo jeeday xisbiga kulmiye halka doonay ku saxay waxa weeye dimuqraadiyadeena qaadanay baa keenaysa in xisbiyadu ay cod kale helaan iminka dadegtid tusaalahaan oo kale ingiriiska kale ra'iisul wasaaruhu waa xisbiga conservative-ka muxaafidka raadaan maayarkuna waxa weeye waa labor-ka weeye marka wax qaabkan ay dadkeenu u bumbulinayaan oo
ka duwanta dimuqraadiyadda horta ma jirto wax kaloo idinka eegaysaa tusaale ahaan maraykanka oo kale dee laba xisbi baa jira tusaale ahaan ilaa 1954 ilaa 1994 waxa weeye waa muddo 50 sano ah xisbiga jamhuuriga haystay waxa weeye kongareeska intaasoo waxa soo maray xisbiyo dimuqraadiya soo maray hadaan 12 sano haysteen 1994 ilaa 2016 waxa haystay dimuqraadiga oo isbedeshay Donald Trump oo joogay dimuqraadiga joogay marka horta dabeecadda dimuqraadiga noocan in ay kala duwanaadaan hay'adii fulinta iyo hay'adda maaragtay iyo sharci dejinta horta marka wax lala yaabo laakiin maayirka Hargeysa idinka lahaa xisbiga kulmiye xukuumadda wali haya dadkii ma la oran karaa way xisbigii la bedelay doonayaan ma warsan soo socdaa ma yaa soo socdaa laakiin waxa ka jeeda waxaan waa phenomenon dimuqraadiyadda ay wadato waxa kaloo jira waddanka soo dimuqraadiya marka xukuumad la doortay la marayo midalka teeramka dhexdiisa inta badan dadku waxay doortaan xisbiyada mucaaradka imka waxaad ii soo heshaa maxay ahayd ra'iisul wasaaraha Jarmalka kale Angela Merkel 16 sano joogtay 2015 bay timid intaasoo jeer baa laga helay maaragtay doorashada gobolada oo dhigantay inaga baarlamaanka oo iyagootoodu waa baarlamaanka oo dhiganta haddana dib u soo noqotay marka mid teer markay timaado wadamo badan oo dimuqraadi waxay yimaada waxa dambeystay imka 2 bilood oo dambeystay madaxweynaha Faransiiska kale waxa laga helay doorashooyinkii localka marka lama oran karo inay yihiin wax uun gaar oo unique oo xaggeen ka yimid mid term markuu yimaado xisbiga xaakimku inta badan waxa dhacay in dadku ay door bidaan maaragtay laakiin su'aasha taala waxa weeye hadda xisbiga xaakimkii maxaad kaga jawaabaysaa waa dhacday waa xaalad dimuqraadi oo caadi ah wax mushkilad ma leh waa sideeda u dhacday waxa taas waliba tusaysaa in dimuqraadiyadu tahay dimuqraadiyad hufan oo saxsan waxaad ogeedeen xisbiyada mucaaradka 2017 way diideen natiijadii doorashada hore ilaa markii dambe ay ogolaan laakiin maanta xisbiga xaakimku inuu ka dimuqraadiyay wax ka garanaysa iyadoo intaas dhacday haddana dee wax lagu soo dhawaad marka su'aashu waxay tahay xisbiga xaakimka hadda tiin maxaad kaga jawaabaysaa saxdi waa taa tani waa caadi in baarlamaanku ay helaan wasiir markii aad eegto doorashada dhexe la galo dawladu qofku is qiimeeyaa muddo 4 sano ku dhawaad ka joogtaan ama haddana gaarin ba dadkii miyaana ka dhignayn xisbigii kulmiye ee Muuse Biix Cabdi 55% boqolkiiba 5 cod ka badan ay ku doorteen iyo xisbiyada mucaaradka aan waqtiga ay farqaas u dhaxeeyay in maanta xisbigii wadani oo baarlamaanka xitaa uu ku aqlabiyad sheegto miyaanay ka dhignayn dadku isbedel bay doonayaan oo wixii la idinku dhaliilay hadday noqoteen mashaariicda guud ee dawladdiina siyaasadda xisbiga kulmiye fulinteeda adkaanta badan ee nidaamka dawladnimo ee Soomaaliland ka jirtay inta idinku haysan sida dadku sheegayaan aydan dadkii aad iskugu xidhnayn oo aan dadkii mashaariic badan iyo horumar badan aanu gaaraynin ma ka dhigantay taas aad jirto waxa la doonayaa in xisbiga mucaaradka wadan mar kale dadku ay tijaabiyaan isagu doorashada madaxtinimo ay doortaan taa ma oran karaa dadka fikirkoodii waa isbedelay oo muxaafidkii way ka soo dabcayaan inay taageeraan horta de waa su'aal xisbiyahan oo yaala naga laakiin tu kala maqan iyaduna oo inaga maqan marka doonaysa in qaab cilmiga iyo laftigeeda looga jawaabo tan inaga maqan waxa miiriyuhu salaam wadamada dimuqraadiga marka saad doorashadu dhamayso waxay sameeyaan study ay weydiiyaan dadka oo ka soo ururiyaan waayo waxaan u dhacay waxa kale oo jira iyaguna institution iyo macaahid diyaariya oo madax banaan oo ahayn macaarid iyo maxaafid mid toona oo imika dadegtay ingiriiska kale waxa la yiraahdaa BS British Electoral Study wuxuu diyaariyaa waxa weeye trendiska ama qaababkay isu bedeleen doorashada mar walba doorashada hadana wax badan bay isbedelaan marka iyada laftigeeda anoo su'aasha ku soo noqon doona laakiin markay noqoto culumta laga hadlayo political science oo cilmiga sidiisa u dhisan tahay in qof kasta oo ku jira Allahu akbar idinkana Allahu akbar salaano kale markii 2020kii oo dhacday doorashadii Mareykanka waxay dhacday Super Tuesday oo ku horayo ku dambe trendis baa samay waxa New York Times Washington Post iyo inta la mid ah kale oo ka mid tahay Wall Street Journal kale waxay sameeyaan survey bay qaadaan 2,300 qof isoo weydiinayaan laga yaabo inay kharash badan ku noqoto laga hadana sample lixda gobol oo kale
ay noqoto bal taan ku soo noqon doona horta jawaabta ku soo dhaw markay taa waxay meetaas waxay fududeysaa in la yiraahdo dadku tusaale ahaan waxaasi doonayaan markaan eegnay study-gan soo sameynay masaa soo sameynay waxaan ogaanay taa maxay xisbi ahaan idinka yaala waxa marka su'aasha ayaa fududaan lahayd haddaan soo noqdo taa anaga xisbi ahaan waxa weeye wax noo socota qiimeyn ka la qiimeyno waxa weeye arrimahan iyo doorashadan iyo natiijadan inaga iyo xiriirka dadweynaha ka dhaxeeya sida wax u dhaceen maxay jireen waa su'aalo furan markeedan kulay laga jawaabi doono laakiin aanu saan arkay waxa weeye waa fariin weey ay tahay in dhammaan dad ku jira siyaasadda oo dhan ay ka dhaqaaqaan waxa weeye qaabka hore wuxuu dooran jirnay qaab ka duwan baa imkii mid social media door weyn ku leh media laftigiisa wax badan ku lahaa marka waa nooc cusub oo u baahan in qof kasta siyaasi uu ku xisaabto marka waxaad leedahay arrintan aan yaro dul istaagno shirkado raaliya xisbiga kulmiye doorashadan intaasoo dhan lagaga horeeyay waxa qayb ka hayd baad leedahay miyaa social mediahan iyo platformkan cusub ee iminka lagu ololeeyay waxba ka jira marka inaad update gareysaan oo socialkii isticmaashaan baad doonaysaan miyaa qaybo ka mid oo meelo ka mid waxa ka mid ah muraajaxo kale oo dadka xisbiga ku waayay waxa qayb badan ka mid ahayd in la adeegsaday qaab cusub oo campaign hore ugu jiray marka takale markastoo doorasho gaarto waxyaabaha qaarna waad ku horumaraysaa meelaha qaarna laga horumaraya waana nooca siyaasadda ay tahay inaad war walba aad uga jawaabto marka si guud markaad eegtid waa guul waa laynagu hambaliyey laakiin xisbi ahaan waa su'aalo noo yaalay tahay inaan dib anagu isu weydiino oo sideen maaragtay uga jawaabanay tahay waayo doorashooyinka loo dhan baa soo socda oo dee waddan dimuqraadiyeed oo maalin baa wax imanaysaa doorasho yaalo laakiin hal mid ma ku sheegaya in walba mar walba waxaan rabaa horta markaan ka jawaabaya inaan base saaro waxaa jiray markuu joogay madaxweynihii hore la jiray Bill Clinton wuxuu isagu dimuqraadi jamhuuriga helay xisbigoodii loo leeyahay Gingrich baa ahaa Congress-ka madaxiisa isagoo mid taariikh kale haddana waxa weeye Bill Clinton uu ku soo noqday waxa weeye doorashadii madaxweynaha marka ma aha meesha ku dhamaanaysay waa talaabo kamid ah talaabooyinka nimka wadno way ugu dambeyntii adiga oo ah Dr. Cabdulle Sheekh Cabdullaahi Suufi wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland iyo teknolojiyadda marka laga yimaado dhulka murujaa deegaan ahaan ama bulsho ahaan gobolka Gabiley ayaad matashaa doorashada waxa lagu eedeeyay inaad faragashatay oo xildhibaano kala xulustay oo qaar soo saartay oo codadka jajabka qaar ku soo saartay qaarna ku riday su'aashu waxay tahay arrintaas ma jirtaa sidoo kale isla waqtiga waxa la hadalhayay in adiga iyo xildhibaan hadda ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland oo Axmed in la yiraahdo aad gacan saarteen labadaba waxaad iskaga difaaci leedahay ama aad ka jirood ka ogtahay doorta xildhibaanku xisbigaygu haba xisbi xaakim buu ahaa waxaasina propaganda u baahay dadaan xogaan fidiyeen qaabka imka loo sameeyay ay guddiga maaragtay komishanka qaranku sameeyeen qaab xataa la farin gelin karay ma yahay lambarada jajabka meedan ku soo saaray taa xisbiga lahaa hay taa xisbiga markaas oo go'aan kamaad gaarin adiga iyo Cabdi Casiis Maxamed Soomaali wasiirka biyo meedan tagino Sheekh Cabdi Casiis warka ma ogin halkiisu joogay waxa weeye propaganda waxa ahayd maalin dhacday cid fargelisay oo xataa gudoomiyaha xisbiga gobolka awood aan lahaa laakiin anigu taan ku shaqeynay waxa ahayd mid kasto xisbiga oo kulmiyu ka shaqeynay gobolkiisana joogay wasiiradu way tageen gobolada kali Gabiley muraajaxba deewan ka shaqeynay wax laakiin case oo dhaca haba yaraatee meeshaas ka soo baxay ma jirin kali xisbiyada mucaaradku ma yeeleen dadka waxaan sheegaynaa dad xisbiga kulmiye sheeganayaan marka hadda kiisina kali labada xisbiga mucaaradka laftiga waxbay sheegeen marka taasi waxa ahayd been maanta uun fakato aan waxba ka jirin marka arinta inaad adigu xildhibaan golaha deegaanka wasiir aan dul istaago oo aad isku deegaan hoose tihiin aad ku soo saartay codad jajaba maxaad ka difaacaysaa kuma ka sadawaan ku soo saari karin oo yani xisbiga kulmiye kula talisay ama gudoomiyaha xisbiga ama cid kale oo hawsha ma dhicin jajabkooda xisbiyadu iyaga waxa joogay anta maad fargelinaysaa haba yaraatay وبين هوري الله قف كسمينا أنا آخر أسبوع من دون وايد كلا حزبية ذا محن شيء ذا مرشحين تي مركز شوقي ماشي مري حزب كالسعودي طبعا وكلا سعودي بيستعمل شيرين عن يجوا عن كان عن مارك تمسح هبيرة تمشي عندي بحاسة من السنة
aakhiraan sunana laay xisbigii kulmiye markaad natiijada doorashada aragteen maxay idin qorshaysan annaga xisbi ahaan kolley doorashada waxna dhamaadeen waxna way hadheen tii wakiilada hadhay marka tii waxa hadhay ururada iyo tii madaxtinimada wax badan baa hadhay marka kolley shirgudoonkii golaha wakiilada jeedamiya waa uu socdaa waa la tartamaya anaguna murashaxan aqlabiyadii oo la iska leeyadana wallahi horta halkaa mid waxa jira arrin khaldan baa jira laftigood dadku khaldameen codkan horta waa cod xildhibaan lagu codkiisa uu madax banaay marka waa sax xisbiga ka soo baxay laakiin tartanku iyo inta uu jira baarlamaanku waxa hadee loo sameeyay waa in laga dhex loobi garisto la wada socdo maaragtay codka loo raadiyo si kala aan sheegana kale dadkeen meel gaar wax ka eegaanay laakiin lacag inaad qiiminaysaan xildhibaanadii qaar ka soo jiidaysaan guddoonka xigeenada isbahaysiga aad kala jajabinaysaan bay ku eedanayeen horta waa kelmad aan shaxumay ku jirto in la yiraahdo waxba la iibsanay wax noocaas xildhibaan la soo doortay wax saanad xildhibaan xisbi mucaarada ka soo baxay wasiir oo mabda ku soo baxay xisbigiisii ka tirsan oo xisbiga mucaaradka wuxuu xukuumadda ku imanaya ee aan dhaqaalahayn waa maxay haddaan xag kale kugu noqdo political science ku noqdo Theresa May oo ka horeysay Boris Johnson oo maanta jooga xildhibaanada ka tirsan xisbiga muxaafidka ka raacay mucaaradka oo ajenda ay wadi ku diiday waa tii keentay markaa in intay iscaasisho la galo doorasho ku soo baxay ninka joogay imku waxa jiray markii u dambeysay Congress-ka laftigiisa xisbi xildhibaanada dimuqraadiga waxa raacay jamhuuriga waxa raacay dimuqraadiga marka qofka taa sheegaya bisayl siyaasadeed iyo inaan wax badan meel badan xilkeeyay ma jiro waxa jira waa lobbying iyo maaragtay iyo galaan galay baarlamaanka waxa loo sameeyay waa hawsha noocaas marka aad ka soo qaadayso qof inaad tiraa lacag halka ugu hooseysay qof lagala hadlo weey anu intaan ogahay wax lacag haba yaraatee meesha jira ma jiro laakiin waxa weeye waa siyaasad iyo galaan galay inta waxay dheer doonayo si aan mid kale sheego meelo badan oo xisbiyada dimuqraadiga inta badan waxaan jeedaa baarlamaanka dimuqraadiga xisaabta ku soo baxaan ka soo qaaday imika Talyaaniga oo kale oo wadamada ay baarlamaanadoodu ay ugu dhaqdhaqaaqa fara badan yihiin waxa weeye maalin walba waxa la sameeyaa coalition cusub ama xulufaysi cusub inaga xeerka mid noqon kale laakiin xulufaysi cusub baa la sameeyay wali arki meesid meel dimuqraadiyada leeyahay halkii ugu hooseysay lacag lagu soo maaragtay iyo qofka lagu soo hadal qaaday marka meel تكلم jiro maxaafidi mucaarid ba murashax baad wada wax leedahay anu murashaxana ugu haboon u qalma marka waxaan mucaaradka tusayso ay kugu soo raacayaan adoo dawladdiya ilaa baad ka soo horjeedaan muxuu yahay wuxuu yahay waxa weeye xildhibaanka horta siyaasi siyaasiguna wuxuu ka shaqeeyaa waxa weeye in danta dadka soo doortay bulshada iyo qaranka guud inuu xog raadiyo marka waxa weeye lobbying iyo galaangalka laftigooda wax ku soo baxeen markooda laftigooda bada waa galaangalka ku soo baxeen maalba codka dadka ay ka raadsanayeen ma oran kartaa xildhibaanka soo baxay shalay dadku soo iibsaday ayay wuxuu ku soo socday waa fikrad iyo idea xigeenada ciidada caynteen ilaa hadda ma jirto ya inkastoo wasiir aanay wasaaradda shaqadeedii ahayn haddana xisbiga kulmiyeed ka tirsan tahay xubni golaha dhexe xisbigiin ilaa hadda ku xigeenadii markii hawshiisu dhamaato baa wax la dhagax buu shimbirkooda dilaya shimbirkooda dilaya rabaa inuu ku soo jiito rag fara badan hadhowna uu qaar gaar ah uu siiyo deegaanada qaarna aan siin ku xigeenada sidii shalay qoladan isbahaysiga wada galay ay iyaguba u arkeen farsamadoodu inay xagga hore ka sheegtaan ee xisbiguna maalinta uu hawshiisu gaadhay u sheegi doonaa marka wax dhibo weyd ma jiro laakiin waxaan ku sheegay in dadaalku meel fiican marayo kulli aanay rajaduna xumayn aad baad mahadsan tahay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta Somaliland Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil wasiirka isgaarsiinta teknolojiyadda oo MMTV waraysi siinayay dheer macalin wasiir aad baad mahadsan tahay waraysiga aad siisay telefishinka aad baad mahadsan